السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لها قيمة هي شرف تلي هودا نقل حدو هالكني وصومالي ستيت نيوز oo alaaba uga barateen wararka xiisooyin kale iyo falanqaynta ku saabsan Somali State ama dhulka Soomaalidu degto insha Allah maanta waxa miiska inoo saaran oo aynu waxa weeyaan aynu falanqayn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo ninka waayahan dambe aad ka loo hadalhayo siyaasadda adag la yimid ninka waxa weeyaan loo yaqaano Jawhar Maxamed ninkaas aynu maanta falanqaynayna haduu Ilaahay yiraahdo waxaynuna ka abaari doonaa insha Allah dhowr arrimood marka koowaad waxaynu ka abaari doonaa Jawhar waa kuma oo taariikhdiisa ayaynu falanqayn doonaa marka labaadna waxaynu ka hadli doonaa wixii uu isagu ku soo shacbaxay oo caan ku noqday oo ahaa isbedel doonkii oo isaga inta badan lagu magacaabo inuu ahaa ama lagu tilmaamo ninka horseedka u ahaa isbedelka maanta Itoobiya ka dhacay ta saddexaad oo aynu iyadana diiradda saari doono Jawhar Maxamed muxuu rabaa isagu muxuu maagan yahay siyaasad noocee ah ayuu isagu u socdaa ama muxuu ku fikrayaa marka akhyaarta qiimaha sharafta leh waxaanu idinka codsanaynaa subscribe